Videogan waxaan ugu talagalay ardayda igu xiran xagga forex ku saabsan oo wax badan iga codsadeen oo soo sameeyo videogani. Videogan wuxuu ku saabsan yahay waxaan idinla wadaagi rabaa 4 waxood oo aad u waaweyn oo ay tahay markaad ka ganacsanaysid suuqa online-ka forex-iga inaad ku dhaqantid. Afartaas hadaad ku dhaqantid waxaad gaaraysaa guulo badan oo forex ku saabsan. Saan ognahay Soomaalideeni dad badan intee kaleen boqolkiiba hada waxaan dhihi karnaa 55 waxay ka aaminsan yihiin forex inay tahay meel khasaaro ah. Sababtana waxaa ku iskareeyay dadkeeni markay wixii bilaabeen ayagoo aqoon fiican u lahayn wixii markaa cusbaayo na soo galay way kulus garooween badankood maysan helin wax si dhab ah u gacan qabto. Qofka markuu bilaabo wuxuu u baahan yahay qofka ka horeeyay inuu siiyo talooyin meelihii lagu dhaco meelihii lagu jabo wax walba in qofkan talooyin fiican laga siiyo si uusan meeshaasi jab uga imaanin qofkaasi. Waxaan rabaa maanta inaan idila wadaago dadka suuqan ka shaqeysto ama dadka hadda demo-ga wado oo rajeynaya suuqan inay ka shaqeystaan ama dadka ku jira casharada forex oo ku saabsan oo hadda raba suuqan online-ka ay ka faa'iideystaan. Waxaan la wadaagayaa 4 qodob inay aad way badan yihiin laakiin 4 qodob waa 4 qodob ugu muhiimsan ee tahay qofka inuu ku dhaqmo. Aniga waxaan ahay forex qof professional ah muddo ku jira hadda dad badan waxaa jirto oo aan caawiyo Soomaali iyo ajaanib kale wadamo kale u dhasheenba. Marka waxaan moor fiiriyay waxyaalaha dadka keeno haday noqoto aniga markaa cusbaa riskiga aan ku gali jiray horta wax markuu business shayga markuu business yahay sidiisa banaanba faa'iido iyo khasaaro labadaba waa leeyahay waa inaad ku tashataa. Forex markaad bilaabaysid ugu horeyntii aad soo galaysid hadaad ku soo gashid forex waxaa rabaa inaan ka sameeyo lacag intaas la eg intaas rabaa faa'iido intaas oo lacag baan gashanaya intaas baan rabaa inaan ka soo saaro. Hadaad markii horeba ku soo gashid waxaa laga yaabaa markii ugu horeysa markaad khasaartidba inaad ka niyad jabtid. Markaad soo galaysid forex waa inaad ku soo tashataa lababa faa'iido iyo khasaaro labadaba. Waayo forex waa nooc ka mid ah noocyada business-ka ah oo online-ka ah. Marka waa inaad ku tashataa waa inaad khasaari kartid sidoo kale waa inaad faa'iido kartid. Laakiin waa inaad xakameyn kartid khasaarahaaga oo focus-ka aad saari kartid lacagta aad haysatid aad saari kartid lacag hadda for example waxaad haysataa akoonkaaga waxa kugu jirto lacag $100 kugu jirto ama $1000 kugu jirto ama 500 lacag ah. Haddii 500 kugu jirto suuqani imisa ka raadin kartaa waa inaad ku fikirtaa. Maahan inaad 500 adigoo kugu jirto aad wax xun ay istustido dhahdid intaas kun baa rabaa maanta inaad ka sameeyo 500 oo kale inaad ka sameystaan rabaa. Maahan run ahaantii forex nooc saas loo isticmaali karo. Waxaan idila wadaagayaa hadaba rabo inuu badi videoga oo aan dheereeyo. Videoganina waxaan u sameynay maahan face to face aan idin soo hor fadhiisanayo. Waxay igu noqotay waan sugi kari waayay sababtoo ah ayaamahan dhan baa waxa laga soo codsanayay noo soo sheeg waxyaalaha iska ilaalin karna forex dad ku cusub baan nahay ama dad waxaan nahay xoogaa yar ku jiro. Marka videogan waxaa idin kula wadaagayaa 4 waxyaalood ee tahay muhiim inaad sameysid hadaad sameysidna suuqani guulihiisa badan aad kala kulmaysaa insha Allah. Tan koowaad waxa waaye isticmaal risk management. Isticmaal risk management. Dhaqaalahaaga akoonka kugu jiro waa inaad isticmaashid risk management waxaan markaan leeyahay waxa waaye inaad isticmaashid risk waxay noqonaysaa wax macquul inaad suuqani aad ku isticmaashid aad ku gashid. Tusaale $100 ba kugu jirta akoonkaaga suuqani waa inaad dhahdid haddaan ka raadsado $20 sidoo kale si la mid ah waan qasaari karaa $20 akoonkeyga ma ogolaan karaa akoonkeyga waa inaad ku fikirtaa number 1. Haddii kugu jirto $100 sidoo kale suuqani maanta waxaan ka rabaa inaan ka raadiyo $50. $50 faa'iidada geliyaha fiirinin dhanka kalena fiiri qasaarahana fiiri. Haddaan qasaaro akoonkeyga ma aqbali karaa intaasi $50kaasi haddaan soo faa'iidan waa faa'iidada inta rabtay. Waa inaad labadaasba fiirisaa. Marka waxaa muhiim ku ah inaad isticmaashid risk management. For example haddaan easy faahfaahiyo akoonkaaga waxa kugu jirto $100 suuqani waa inaad ka raadsadaa maalintii 5% profit
boqolkiiba 5 profit waa inaad ka raadsataa. Hadday kugu jirto $500 sidoo kale boqolkiiba 5 profit. Waxaa kugu jirta 500 adigoo aanan dheereynin oo wax weyn isticmaalin losses akoonkaaga qaadi karo isticmaal. markaasi faa'iidadaada run ahaan way badanaysaa marka isticmaasho risk management khasaarahaagan wuu xadidnaanayaa. tan labaadna waxa waaye halkii trade ama halkii signal ha furin 2 mar ka badan. 2 mar 2 position ka badan ha ka furin 2 position 2 mar ka badan ha furin halkii trade. tan saddexaadna waxa waaye inaad samaysatid inaad controlshid emotionkaaga. muhiim waaye guys, tan waa inaad controli kartaa emotion. waxaan ka wadaa waa inaad controli kartaa trainkaaga. haddaa aragtid khasaaro dambi buu kula cararayaa, haddaa dambi buu ila aaday tradeekii khalaas xidhidba tradeekii uu soo turtuuraa uu soo laabtaa. marka anaga waxaan aragnay dadka markii fasitem uu ahaa suuqani oo intay fureen arkeen $2 ayagoo khasaaray. $2 nothing. $2 tradeekii uu soo laabanay markiiba xiray. marka waa inaad controli kartaa emotionkaaga. waa inaad controli kartaa emotionkaaga. waxay noqonaysaa micnaha waa inaad isxakameyn kartaa. waa inaad isxakameyn kartaa. tan kalena waxa waaye guys, muhiim waaye ayadana waa inaa kala soo baxdaa lacagta ka shaqaysatid. haddaad bishan shaqaysatid lacag waxaa ku bilowday 500 suuqa, bishan waxaa kusoo baxday lacag 500 oo kale ah ama ka yar ama ka badan. waa inaa kala soo baxdaa faa'iidadaada. dadka run ahaanti waxaa laga dhaadhiciyaa 1,000 ku bilow 1,000 kala faa'iide 2,000 ha kuu noqdo bisha kale 3,000 ha kuu noqdo 4,000 not good. maanta haddaad lacagta shaqaysatid bishani meeqa faa'iide ii soo kordhay, faa'iidadaada kala bax, lafahaagii ka dhigo meel dhigo. taana waxa waaye qodobka 4aad ee muhiimka tahay inaad isticmaashid. afartaasi qodob haddaad forex isticmaashid run ahaantii kuulal badan aad gaaraysaa. sidoo kale waxaa muhiim ah broker fiican inaad isticmaashin guys. Soomaalideena run ahaantii brokerka dib aad u weyn kaga qabaan. broker qaar waxaa jirta adi lacagta kaa sameysanayo khasaarahaaga ku faa'iidayaa. marka mar walba loos ku galaysaa. hadduu aad dhinaca kale suuqa asigoo 20 bib kaliya carara adi wuxuu ku keenayaa 25 bib. waa inaad ka fikirtid brokerkaaga. muhiim waa ayadana brokerada fiican. haddaan tusaale idin sheego waxaa ka mid ah inaad isticmaashid brokerkan la dhaho hadduu ilaah kuu roon yahay ACN aad buu u fiican yahay. waxaa kusoo xigo broker badanaa jiraan laakiin ACN kaasi number 1 buu ku jiraa. haddii kuu suurtagelayso ACN ka furo. laakiin brokerada waxyaalaha ugu muhiimsan ka qayb qaadanaya ka mid tahay suuqa shaqadiisa. marka dadka cusub fiidiyogana maanta ugu horeey forex waxyaalahaasina dib ugu laabo fiidiyo kale waxaa jira aan kaga soo hadlay oo forex ku saabsan. hadday noqoto sida qaabka loo furo deemaha iyo hadday noqoto qaabka suuqani loo bilaaban karay waxyaalahaasi aan kaga soo hadlay. suuqani waa suuq qaab online looga shaqaysto. forexina waxaa laga soo kaabiyey foreign exchange. tan kale oo ardaydeeda hadda aan u sharaxay ku saabsan oo aan ka ilaawin waxay tahay guys, suuqani maalin walba ha isaga jirina. maalin walba haddaad dhahdid waan ku jirayaa maanta markaad faa'iido fiican ka qabsatid biri asigoo xun suuqii inay waxaa dhahdid daily waan dhex fadhinayaa mugta nolosheedaan ka dhiganayaa forex. maalintii kale asigoo xun baa ku aadaysaa. intii shalay aad soo faa'iide iyo in ka badan baa khasaaraysaa. marka suuqani maalinta aragtida opportunity fiican ka jirto ama faa'iido fiican ka jirto kal faa'iido ka qabso. maalinta aragtid inuu suuq xoogaa fadhinin ma tahay meeshaas iga joogdhe tanahaaga howlahaaga adduunyada kale waxyaalaha adiga aad qabsan lahayd qabso. laakiin maalinta aragtid inuu fiican yahay kal maalintuusan fiicneen aragtidna inuu xun yahay ama lacagaha ku trade kareynaysay xoogaa si ka yihiin iska daa. waxani wax cararaya ma ahan. suuqani waa suuq mar walba waxaa ka faa'iideysan kartid waay. marka opportunity aragtid kan hataa marka aragtid inuu suuq xoogaa ka sal fadhina iska badaawa. marka khasaarahaaga aad buu u yaraanayaa runtii.
intaasi haddaad ku dhaqantiin waxaan hubaa inaad faa'iidi doontiin insha Allah. Dadka ku jira forex intaas bay u baahan tahay. Forex run ahaantii investment ka sameyso, lacag gasho, ku shaqeyso, laakiin daily hadhihin waan fadhinaa. daily haddaad dhahdid suuqani aniga waa fadhinayaa maalin walbo, maalin wuu xun yahay suuqani, maalin wuu fiican yahay. Marka waxaa kaaga fiican maalin wuu fiican yahay inaad ku aadid oo aad gashid oo fiirisid suuqa. qaabka loo ogaan karo suuqa maalin wuu fiican yahayna haddaad danaynaysiin iisoo sheega video kale idinka soo sameynaa. marka waxaa idin leeyahay saa mar walba ila soo xidhiidhiin oo ku saabsan forex. insha Allah ana intii aan awoodo oo idin faa'iideyn karo. Time-ka waa ogtihiin waqtiga aad buu qofka waqtigeyga aad buu ani ahaanteyda uu ku yar yahay. maanta waan jeclaan lahaa qof kasta oo Soomaaliya, wallahi qof kasta Soomaaliya inaa u faa'iideeyo. ani ma aqaan sheyga la dhaho qofka maxaa la dhahaa hagartaam lama dhahe sheyga qofka inaa wax aniga inaa u faa'iideeyaan jeclaha micnaha. waayo ma hor qof hadaa u faa'iideey waxba aniga sii faa'iideystaa, qof kale hadaa u faa'iideey waxbaan kasii faa'iideystaa. laakiin waqtiga aad u yar Soomaali oo dhan ani maanta si free ah wax ugu faa'iideyn lahaa. laakiin time-ka wuxuu yahay waa ogtihiin 24 hours only baa haystaa. marka 24 hours qof haysto intaasoo howlna isku qabanayo way adag tahay waqti inuu helo. marka intaan awoodo oo aniga ah waa idin caawinayaa si hakarlii ah. marka idinkan dadaala insha Allah. waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. haddaa ku cusubtahay maanta janaalkeena ha ka ilaawin subscribe-ka, like-ka, comment-ka, share-ka meel walba ku share gareey.